wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane Duraan Axmed Faarax ayaa maanta socdaal ku yimid magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana garoonka diyaaradaha ee Ushaako ee magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweeyay maamulka gobolka kan degmada Gaalkacyo ee Galmudug. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Mudug Baashe Maxamed Warsame ayaa wasiirka ugu horeyn ku soo dhaweeyay magaalada. Kusoo dhaweynayna wasiirka duulista hawada dowladda Soomaaliya Duraan Faarax wasiir kusoo dhawow magaalada Gaalkacyo garoonka weyn ee Ushaako Airport. saako dhan waxaan lagu taagnaa garoonka waxaan sugaynay maaragtay soo dhaweyntaada aan maanta dhan diyaar u ahayn. waxaan ku faraxsanahay inaan maanta na soo gaarto maadaama bulshada maanta dhan ay taagneyd waxa waaye fadhi ayaa ku sheekaysan doonaa. Gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Isxaal Jiriye ayaa soo dhaweyn kadib wasiirka ku bogaadiyay nabadeyntii magaalada Gaalkacyo oo wasiirku qaybta lixaad ee ka qaatay. wasiir ku soo dhawow gobolka Mudug oo runtii ah gobolkii aan nabadiisa ka shaqeynaysay muddo 3 bilood ah aad u fadhiday ee aan oran karno waa hawlkar runtii nabadda gobolka Mudug ee beelaha walaalaha ee degan in badan ka shaqeynay oo runtii shaqo badan nala qabtay heer gobol iyo heer degmo waxaan ku garan karnaa meelii aan qorbaha oo marayay oo qodxaha lahayd oo nabadda u marayay ilaahay maadiisu maantana inaad Gaalkacyo oo nabadii ku waartay aad ugu dambeyn wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane Duraan Axmed Faarax ayaa mahadcelin kadib ka sheekeeyay muhiimadda magaalada Gaalkacyo ay u leedahay geedi socodka dowladnimada dalka. Dhammaantiin aad iyo aad baan waxaan kaga mahadcelinayaa soo dhaweynta sharafta leh iyo qiimaha badan oo nagu soo dhaweyseen. aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan joogo magaalada Gaalkacyo aan ka soo degay garoonka Ushaaka. waxaan aad baad u mahadsantihiin waa ogahay waqti badan baa la joogay sidaad hore ugu sheegteen ba haddii Ilaahay yiraahdo magaaladan waa magaalo muhiim u ah Soomaaliya oo dhan waddanka bartamihiisa ku taala Soomaaliya horumarkeeda iyo wanaaggeeda iyo nabadeedana meesha gundhiga u ah marka runtii inaan maanta joogana aad bay ii farax gelinaysaa waan ku faraxsanahay safar degdeg ah aan ku yimid marka haddii Ilaahay yiraahdo intaan joognaan si fiican wada sheekaysan doonaa insha Allah taala waxyaabaha horumarka gobolka iyo deegaanka dhamaanba inaan si fiican haddii Ilaahay yiraahdo aan uga wada hadli doono inaan qaado waxa la yiraahdaa talooyinkiina iyo baahiyaha jira haddii Ilaahay yiraahdo nala wadaagtaan waxyaabaha loo baahan yahay marka runtii dowladda Soomaaliya aad bay uga go'an tahay nabadeynta deegaanadan oo dhan in la nabadeeyo dad walaalo ah oo laga yaabo waxyaabahan muhiim ahayn iyo macna lahayn in ay la dhaxgaliyay in hawshoodii inay meel fiican ku dad Soomaaliya oo nabadda Soomaaliya oo dhan meesha ka dhalato waa halkaan haddii Ilaahay yiraahdo marka haday Gaalkacyo nabad tahay Soomaaliya oo dhan waa nabad insha Allah taala. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Muuse warbaahinta qaranka magaalada Gaalkacyo.